shock iyo ama kaag ay noqotay arrin lagu arkay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Dadkii way anfariirsan yihiin sida ay xaaladani suurtagal ku tahay ama mid adduunyada ka dhici karta. Mucjiso la yaab leh ayaa ka dhacday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, kaas oo xaqiijiyay doctorka ugu weyn Muqdisho, Dr. Shaafici. Qof ayaa la cadeeyay inuu laqay 32 fure iyo 2 birqaad. sawiradan iga dambeeya dhamaantood qofkaasi calooshiisa ayaa laga soo bixiyay. Qofku ma wuxuu ahaa mid waalan, ma wuxuu ahaa qof lagu qasbay, ma wuxuu ahaa mid tuug ah oo asaga oo waxyaabahan sita ka baqay in la qabto sidaas darteed u laqay. ilaa ay hadda lama cadeeynin, laakiin doctorka ugu caansan magaalada Muqdisho ee qalliimada sameeya ayaa cadeeyay in hawshan asagu uu qabtay oo qofkan uu ka soo saaray. isaga laftirkiisu waa uu shoogsan yahay sida ay suurtagal ku tahay arintan ayuu la yaaban yahay xitaa inuu qofka noocaan oo caafimaad qabo. ninkan isaga oo matagaya xaaladdu ku xun tahay ayaa la keenay, kadibna qalab ay isticmaaleen aawadii ay ogaadeen in qofkan xaalad halis ah uu ku jiro. muuqaalka doctorka ayaan ku daarayaa, bal adigu arintani maxaad ku micnaan lahayd? 32 fure iyo 2 birqaad, qof naftiisa raba oo asagu laqay calooshiisana geeyay. sidaan ay wax u dhaceen, doctorkii ayaa si toos ah kugu sharaxaya, bal muuqaalkan adigu ila taxaw. bukaan loo keenay oo matagahayay calooshan laga hayay aan raajooyna saarnay, waxaan ku aragnay in uu calooshiisa wax weyn oo sidii bir camal ay ku jireen. waxaan sameynay in aan endoscopiga ama tuubo aan ka gelinay stomach ama caloosha. tuubada markaan gelinay waxaan meesha ugu tagnay waxyaabo badan oo isku dhagan furiyaal aad u tiro badan. markaas waxaan bilownay in aan xabad uga soo bixino 10 saac ka bacdi. waxaan oo suurta gashay in aan 33 fure iyo 2 birqaad aan ka soo saarno. marka waa arrin aan la yaabay oo xaqeen mucjiso ah.